halkani waa buska Doonwaal wuxuu ku yaalaa duleedka bari ee magaalada Burco. Waxa uu soo dalxiis taga badi bulshada magaalada Burco iyagoo ku qaata maalmaha nasashada. Wiilasha iyo gabdhaha waxa ka muuqda farxad wajiyadooda. Waa dhul siman oo cagaaran oo naq iyo doog udgoon oo daawashada ku wacan ayuu leeyahay. Hooyooyin iyo aabayaal ayaa ubadkooda kula qaata jawi degan goobtani. magacaygu waa Hibaaqayaan le maanta waxaan ku suganahay Buska Doonwaal. maasha Allah quruxdiisa waa aragtaan nimcada oo ku dalxiiseynay iidii farxadan ku qaadanayna alxamdulillah ilaahay inuu nimceeyay quruxdaasaan jeclaysanay inaan ku soo ciidno. walaalayaal sidaad aragtaanba meeshan waxa weeyaan Buska Doonwaal deetana aad iyo aad baa saddexdii casheedka loogu soo dalxiisay tagay dad fara badan oo bulshooyinka kamid ah ayaa u soo dalxiis tagaysan anigu kamid ahay marka meeshan sawiraan ayaa lagu galay waxa lagu qaadanayay jawi wacan aad iyo aad waxa jooga fotografistayaal fara badan marka aad iyo aad ayaan dadkii halkan u wada joogaan bulshadii oo dhan dhamaanteed gaar ahaan dadkii gobolka Burco joogay halkan ay dhamaantood soo dareereen kamaradayaal fara badan bay muuqda saad aragtaan sawiraantii qaadqaadayo shaqooyin ku jira marka aad iyo aad baan u salaamayaa dhamaan bulshooyinka Soomaaliland. magacaygu waa Rajaa Maxamed waxaan kamid ahay dhalinyarada gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxaan halkan u nimi maanta iyadoo ay tahay maalin ciida oo ay tahay maalmihii farxadda lahaa ee maalmaha islaamka inaan halkan ku qaadano waqti kooban oo nasasho iyo naga fasaxa meesha waxaan Buska Doonwaal oo meelaha ugu quruxda badan leh marka roobku doo Burco dhalinyaradu iyo dadku ay u yimaadaan dalxiiska jawiga aad buu degay maasha Allah cawskii roobkii dhawaan helayna wax soo saaray caws aad badan maasha Allah quruxda lama soo koobi karo jawiga halkan iyo farxadda iyo ciidda iyo markaas leesha waqti waa wax aad u farxad badan waxaan leeyahay dhamaan dadka muslimiinta oo dhan ciid mubaarak mar labaad iyo mar saddexaadba jawiga halkan runtii aad buu fiican yahay. baakan waa Buska Doonwaal inta badan waxay maada dadka dalxiisayaasha halkan maanta waxa isku yimi dad badan oo fotograafina anigu waan kamid ahay ka imika waxa jooga intii saddexda shay ciida oo meeshana la iimanayo laga buuxay wax ka buuxa dad adigu ciyaalkii la ciidsiinayay reerahoodii ka anagu waxaan ka shaqeynaa imika xaafadahan family-gan iyo caruurtooda marka imikana waxaan wadnaa wali shaqadii ku jirnaa kordhowna waxaan isleeyahay iska tagtaan ilaa maghribka haddeerna waxaa jooga fotograafin kare aad aragtaan aan kamid ahay horena ay ku sheegay marka imika waxaan wadaa shaqadii baan ku jiraa. waa deegaanka ugu weyn ee loo imaado damaashaad dalxiis iyo jawi bedelasho ee ku yaala gobolka Togdheer oo goob camiran oo cagaaran oo cimilo wanaag markay indhahaagu qabtaan xareedda iyo nimcada ayaa ah mid halkan eeba ku manaystay. waqtiyada casarliiqii ayaa loo imaadaa in lagu damaashaado goobtan quruxda badan iyadoo leh caleemo qoyan iyo caws cagaaran. waxay ka mid tahay goobaha ugu quruxda badan ee ku yaala deegaanada Soomaalidu ay degto. halkani waa Buska Doonwaal oo ay soo dalxiis tagaan kumanaan kamid ah dhalinyarta ku nool magaalada Burco. Cabdisalaam Socdaal, Burco.